عقاشة ويلك بالميرادة يهوينك باش يطلب بعيدة كسوق القلب مواصلة شرفا سيدنا وقنا هاي شركة بود باش يطلب بعيدة وحافر الله غير دواقي مقالة هرقيسة كاسو مركي دماغ غير دواقي داس لمقالة عرقابو لبدا حفلود waxaan taageero in loo baahan yahay shirkuga beeshu yeelato aynu joogno meel aadkii bisha tahay waxaanu si guud ugu dhawaaqaynaa in shirkaasi yahay shir qabsoomaya waxaanu kala ku dhawaaqaynaa insha Allah ta'ala goobtu ka dhici lahaa iyo xilligu dhici lahaa ma shir cid lagu durayo ma shir cid loogu tashanayo ma shir muumaraad waa shir daneed beel baa qabsanaysa danaheeday kaga hadlaysaa intaa midna maaha waa shirdaneedka beeshaas baa dal iyo dibadba waxa loogu baaqayaa muddadii baanu halkan ka shaacinaynaa muddada waxaanu ka dhignay maanta bishii 7 waa 22 bisha 9aad 20keeda haddii alla yiri sugaaro dal iyo dibadba shirka in la tixgeliyo laga soo qayb galo la soo ikraamo aan ugu baaqnay haddaanu dhaqankii nahay beesha ay la bixiyay si ay uga tashato aayaheeda iyo danaheeda goobta uu ka dhacayo haddii alla yiri waxa weeyaan gargaro meesha la yiraahdo waxay ku dhowdahay degmada Ceeraf weyn inkii garanaya waa garanaya bartaba beesha halkaasa noo xayinay dal iyo dibadba yahay beesha la bixiyay inaan iyadoo badan waqaan alfinka ka dhawaaqno iyadoo ay tahay xumburtii reerka halkan elful waxaan halkan ka muujinaynaa sida caqabkuba iga horeeyay iga sheegay in bisha 9aad la qabto shirka oo lagu qabto gargaro ayaan halkan ka muujinaynaa waxaan leenahay jilad iyo gudaba sida loo sheegay hal laga soo qayb galo hal yimaado shirkaas waa shir qiimo leh oo aan la xal ku jirin qalqalo waxna lahayn siyaasadna aan ku jirin shir dareed weeye shir dareedka laga soo qayb galo oo la yimaado baanu ugu baaqaynaa reerka haddaanu nahay caqiladii iyo guurtidii reerka halkii xudurtii ay ka soo baxaysay go'aanka reerka reerkuna wuxuu fadhiyaa waxa weeye waa Ceelfayl ama Hargeysa laga dhawaaqo ama Ergaaba laga dhawaaqay salaanka bacdi halkan waxa laga ilaamiyay shirweynihii balweynta la bixiyay oo ka dhici doona bisha 29 fargargaro waxaan u sheegaynaa si fiican oo magiyo miisaan leh looga soo qayb gal dal iyo dibad waa shir dhaqan waa shir reer kiisa aynu ku nimi ina soo kulmiyey ujeedada aynu usnimina ma aha macaasi iyo ciidanaynu maagno iyo ciidanaynu duro waxaynu shaacinaynaa kaliya beeshu inay danaheeda ka shirto in shay shirka isugu wada timaado haday qurba joogtahay iyo haday qolqol joogtahay shirkaas oo sidii waayeelku sheegay 20ka bisha loogu mudeeyay inuu ka dhaco meesha la yiraahdo gargaro وهدي الله سبحانه وتعالى وقلاده أقول كي يقبل كي إلهي سبحانه وتعالى إسكله لكن إنكم وحين النيين إنه اجتهاد كقاضينا إن الله سبحانه وتعالى وقت جاينو سيرجليه دول كان برواقين وقدقه نبتجليه إنه جارسيه عافيمات إنه جارسيه رحمة برواقين الله سبحانه وتعالى إنه جارسيه كلهم فرحات الله سبحانه وتعالى وإنه قدقه بدأنه أسوه لونه وإن كش اللاين كفر عنه كفايدنا إن الله سبحانه وتعالى إنه قدقه
arrimaheena khusuusiga ah iyo arrimaheena caamka ahba aynu ku munaashaqeyno. ballanka aanu shaacinayno waxaanu ku shaacinaynaa 20 bisha 9aad inaanu isugu tagno gargaro ku qabsano danaha iyaga oo in badan laga leexay inaanu ku qabsano go'aan ka gaadhno dawladda dibadda ay ka soo qayb galaan dawladda Soomaaliya sidaa lagu ogaato waanu ku shaqaynayno danaha iyaga ka shirayno intaasna waa salaan reerkeenna waxaan leeyahay ballanaya barbarkay ka baxdaa waa bakeyle qaleen haddii shirka ceergaabo lagaga baaqay iyo hargeysa haddii lagaga baaqay waxaaba waanu ayinsanahay kii baanu rumaynaynaa oo aanu taabacsannahay shirka beesha ee la soo qaabiyo cid kasta oo soo qaabisay waa taageersanna shirka waayo baahi baanu qabnay waxaanu ku taageeray baahi baanu qabnay danaha reerka ah mid maaha cidna duraya cidna waxyeelo u geysanaya wuxuu ku saabsan yahay danaha reerka iyo masiirkooda waa sidaa odayaashu u sheegeen goobtii waa sidaa loo magacaabay waa gargara waa halka awal baanu ku shiri jiray miiskaa weer ahaan jiray kii baa la isugu imanaya waxaan kale u sheegayaa beelweynta la bicido meel kastoo ay joogto dal iyo dibadba inay ka soo qayb gasho 20 bisha 9aad ay qabsoomi doona aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirkaas ay reerku kaga tashanayaan aayahooda mustaqbalkooda iyo masiirkooda beelweynta la bicido oo runtii caawa goobtan si mugle oo miisaan leh u soo camirtay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin ajiibkaa soo ajiibteen madashan midlan ee quruxda badan qof kasta oo isku soo xilqaamay oo dantiisii iyo hawlihiisii uga yimi inuu ka horaysiiyo danta guud ee beesha danihiisii gaarkaa uga yimi runtii oo wax loo baahnaa oo wax runtii waktigeeda ku dhacay oo muddadii loogu talagalay ku dhacday in beeshu ay kaga tashato aayaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo maxaan ku dhahdaa masiirkooda asaasiga marka aad iyo aad hadalka badin maayo aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaya waan aad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay mahadsantihiin halkan waxaanu kaga dhawaaqaynaa 22 bishii 7 2025 waxaanu kaga dhawaaqaynaa shir ay yeelanayso beesha la biciide shirkaas oo ah shir daneed ay aayahooda iyo masiirkooda iyo danahooda kaga tashan doonto sida laga dhawaajiyay caaqilku inooga dhawaajiyey inoogu dhawaaqay baynu ku taageersannahay haddaynu nahay dhalinyaro haddaynu nahay haween haddaynu nahay odayaal intaba aynu ku taageersanna waxaan rajaynayaa inuu shirkaasi noqdo shir aynu danaheenna iyo mideynteena iyo urursanaanteena kaga tashanno waxaan rajaynayaa inaynu kaga tashanno deegaamada iyo masayrka aynu leenahay inaynu kaga tashanno insha allahu waxa uu noqon doonaa shir aan cidna durin cidna ka hor iman oo aan cidna astaan u yeelin buu noqon doonaa sidaa waxaan ku rajaynahay oo ka codsanaya dhammaan dhalinyarada waayeelka inta maqan inta joogta in shirkaas baa loogu diyaar garoobo 2025 waxaa beelweynta idla biciide halkan ay ku shaacinaysaa shir oo ugu talagashay inay kaga arrinsanto arrimaheeda muqaalafaadka dhex yaala iyo xaaladaha guud shirkaas oo aan durayn dawladda iyo cid kale aan durayn shirkaas wuxuu dhacayaa waqtiga cuqaashu ay iclaamisay oo ku beegan bisha 9aad 20keeda waxaan leenahay dhammaan beelweynta idla biciide dal iyo dibadba waa inay soo dhaweeyaan shirweynaha lagana soo qayb galo rajaynayaa insha Allah inay noo noqdo shir barakaysan oo wanaagsan go'aamo qurux badan insha Allah inay nooga soo baxaan waxaan rajaynaynaa in la sii xoojiyo shirarkii hore loogu baaqay ee reer ku lahaa runtii ay kaga hadlayaana waa danahooda gaarka
iyo waxyaabo iyaga u yaala insha Allah oo aynu dhamaystiri doono waxaan leenahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan guushu waa barbarkeena insha Allah anagu haddaan nahay dhalinyaradii aqoon-yahankii garabkiina aanu nahay insha Allah sallallahu alayhi wasallam halkan waxaanu isugu nimi haddaan nahay beelweynta dabciide inaanu kaga hadal ka shaacino shir ku saabsan arrimaha iyo masiirka reerkayga shirka odayada cuqaasha waayeelka reerka waxgaradka inta waxaanu garanay in shirka la cilaamiyo caawaraanu shaacino shirku saas ku daaran yahay qof kastoo dabciyana waxa la farayaa in shirka qalbiga iyo niyadda iyo nafta iyo maalka laga soo xaadiro shirka halku dhigiisu sidaa weeye dadweynaha isgiibeeday dabciye soo camiray meesha waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin waxaan leeyahay shirka aynu cilaaminay waa shirkii dabciide goobtiisa horaa loo sheegay waa shirkii danka tashiga ahaa mid siyaasadeed maaha mid cid lagu durayo maaha waa mid reer oo kaga tashanayo masiirkiisii iyo xaaladaha jira dadweynahana waxaan ogeysiinaynaa meel kastoo uu joogaba in shirku xilligaa qabsoomi doono diyaarna aynu nahay qof kastoo ka qayb galay iyo mid kastoo maqlaaba oo reerkaasi inuu ka soo qayb galo arrinkaa xaadir lagu noqdo waa samarka taris shirkii ahaa waa shirkii beeshu ay qaban jirtay waanu shiri jirnay laakiin kan inaanu ka bedelaan doonaynaa oo shir uu yahay shirkan uu noqdo shirkii ahaa danka tashiga